waxaan rabaa in aan update-kii kala qaadashadii xaaladda coronavirus-ka marayo inaan idin soo jeediyo. xalay kaysaska xaaladaha waxay marayeen 25. shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta keliya marka lagu daro 25kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ka jira. 2 qof waa laga geeriyooday Allah u naxariisto 2 way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad Ilaahay u siiyo. sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jira si xawli ayuu u socdaa bulshada. waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan. waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan. sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qofa. labada calaamadood ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94. labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro. haddii lacalla xaaladiisa ay xooga isbedesho oo inuu doctor markaas la soo waco numberka uu soo waco ama isbitaalka uu u tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaalada la geeyo haddii alle. waxaan ku waaninaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo la isdhowro la isxakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo nadaafadda lagu dadaalo meelaha ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan nafadiisa iyo dadkiisa ilaahay inuu naga. waxaan rabaa in aan update-kii kala qaadashadii xaaladda coronavirus-ka marayo inaan idin soo jeediyo. xalay kaysaska xaaladaha waxay marayeen 25. shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta keliya marka lagu daro 25kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ka jira. 2 qof waa laga geeriyooday Allah u naxariisto 2 way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad Ilaahay u siiyo. sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jira si xawli ayuu u socdaa bulshada. waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan. waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan. sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qofa. labada calaamadood ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94. labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro. haddii lacalla xaaladiisa ay xooga isbedesho oo inuu doctor markaas la soo waco numberka uu soo waco ama isbitaalka uu u tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaalada la geeyo haddii alle.
waxaan ku waanidaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo lays dhowro lays xakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo nadaafadda lagu dadaalo meelaha ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan nafadiisa iyo dhibkiisa ilaahay inuu naga waxaan rabaa in aan update-kii kala qaadashadii xaaladda coronavirus-ka maraayo inaan idin soo jeediyo xalay kaysaska xaaladaha waxay maraayeen 25 shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta keliya marka lagu daro 25kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ku jira 2 qof waa naga geeriyooday Allah u naxariisto 2 way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad ilaahay u siiyo sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jira si xawli ayuu u socdaa bulshada waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aanan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qufac labada calaamadooda ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94 labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro haddii lacalla xaaladiisa ay xooga isbedesho oo inuu dhigtoodo markaas la soo waco nambarka uu soo waco ama isbitaalka ugu dhow oo tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaallada la geeyo haddii alle waxaan ku waanidaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo lays dhowro lays xakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo nadaafadda lagu dadaalo meelaha ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan nafadiisa iyo dhibkiisa ilaahay inuu naga waxaan rabaa in aan update-kii kala qaadashadii xaaladda coronavirus-ka maraayo inaan idin soo jeediyo xalay kaysaska xaaladaha waxay maraayeen 25 shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta keliya marka lagu daro 25kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ku jira 2 qof waa naga geeriyooday Allah u naxariisto 2 way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad ilaahay u siiyo sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jira si xawli ayuu u socdaa bulshada waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aanan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qufac labada calaamadooda ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94
labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro haddii lacalla xaaladiisa ay xooga iska disho oo qofka inuu dhigtoodo markaas la soo waco nambarka uu soo waco ama isbitaalka ugu dhow oo tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaallada la geeyo haddii alle waxaan ku waanidaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo lays dhowro lays xakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo nadaafadda lagu dadaalo meelaha ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan nafadiisa iyo dhibkiisa ilaahay inuu